daawadayaal waxaan ku sugannahay bartamaha suuqa magaalada Boorame waxaan bulshada ku nool magaalada Boorame aan aragtidooda ka weydiinaynay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyaba bulshada Soomaaliland ay isla dhexmarayeen soo dhaweynta madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bulshada magaalada Boorame ayaan wax ka weydiinaynaa bal siday u arkaan arintaasi iyagoo arintaasi ka hadlayna waxa ay yiraahdeen iyadoo aragtidaada ku aadan in madaxweynaha dalka Soomaaliya uu imaado magaalada Hargeysa waxaan u arkaa si fiican waa dalkiisii waa magaaladii madaxdii labaad ee Hargeysa imanaya waan ku soo dhaweynaynaa waa madaxweynaheeni Farmaajo iyo Abiy Ahmedna waa madaxweyne jaarkeena marka isagoo nin wadankiisii Hargeysa yimiday Abiy Ahmedna ku soo dhaweynaa Hargeysa iyo Muqdisho waa dalkiisii haduu yimaadana waa dalkiisii uu iman karaa barina uu imanaya waligiina uu imanaya waxa wala aad u seedo aragtaa in madaxweynaha dalka Soomaaliya lagu soo dhaweeyo magaalada Hargeysa waa Boon Maxamed Saylici anigu waxaan u arkaa inaan wax suuragal ah ahayn way laba dalbaynu nahayd duu isagoo qof Soomaaliya uu inoo imanayo ma sheegin anigu gobolka Awdal hadaa fikirka ka dhiibto imaashiyaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dr. Abiy Ahmed ra'iisul Itoobiya waxaan u arkaa mid aad iyo aad loogu baahan yahay sababtoo ah hadii aan iyar ka soo qaato hay'adkii ahaa Xasan Daahir Ismaaciil Warsame tiriyay ilmahan hadal hooyadii haruun ma tiraahdo marka waa hadalka waxa weeyaan wada halkay wax ku jiraan la wada hadlo hadii la wada hadlo waxa imanaya in ama ay xorriyadeeda hesho ama dib loo midoobo Soomaalidu kama maalanto in la midoobo wax wada qabso marka imaashiyaha madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee Soomaaliya Hargeysa aad iyo aad u bogaadina soo dhaweyn wal ku soo dhawow bal aragtidaada ku aad saad u aragtid in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu imaado Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim wanaag baan u arkaa waa arrin aad fiican inuu yimaado Hargeysa Soomaali xad ma laha aad baan soo dhaweynayaa imaashaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku yimaanay caasimadda Soomaaliland soo dhaweeyay magaalada Hargeysa anu waxaan u arkaa inay khalad tahay Farmaajo ma iman karo Soomaaliland waayo wuxuu xukumaa Muqdisho xukumaa miyuu ugu dambeeyay waxa la isla dhexmarayeen magaalada Hargeysa uu imaado madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adigu saad u aragtaa waan soo dhaweynaa madaxweynaha Soomaaliya dhan buu madaxweyne u yahay waa madaxweynaha mustaqbalka Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa waxaan u arkaa madaxweynaha Farmaajo waa wadan Soomaaliyeed dadkuna waa dad Soomaaliyeed madaxweynayaashuna waa wada Soomaali muusana cod baa lagu doortay Farmaajona cod baa lagu doortay madaxweynaha waxaan deeleeyahay inay gartaan dantooda haday Soomaali ay heshiisana alxamdulillah inay danteeda garataa wanaagsan in ay danahooga ka shaqeeyaan oo dad u dhaxaynin ba ka sii qurux badnayd way wala aragtidaada ku aadan in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abiy Ahmed lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa saad u aragtaa shukriya Cabdullaahi aad baan maasantaa runta camarka arrin weyn oo muhiim ah Soomaaliland haduu Farmaajo imanayo Soomaaliland imanayo waa markii ugu horeysay taariikhda madaxweynaha Soomaaliyeed uu yimaado Hargeysa wana markii ugu horeysay ra'iisul wasaare Itoobiya yimaado dalka baxsan Itoobiya oo Soomaaliland runta la aqoonsaneyn halkaasi China bay u tahay Soomaaliland imaashaha labada madaxweyne iyo ra'iisul wasaare runtii maqaalkiina aad u sareynaya wallaahi waxaan u arkaa anigu wax weyn oo u qabsamay ummadda Soomaaliyeed horta Soomaaliya sidaba Soomaali baa iska leh waana madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo farxad baan ku soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha Soomaaliya inuu yimaado magaalada Hargeysa sideed u aragtaa aragtidaada ku aadan maalmihii ugu dambeeyay waxa la hadalhayay in dalka Soomaaliland lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aragtidaada sideed u aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ama ba'd hada su'aasha ay weydiisay adeer waxaan u arkaa dawladda Soomaaliland waxa u fiican inay soo dhaweyso madaxweynaha Soomaaliya because waxa weeye Ingiriiska iyo Talyaaniga way soo dhaweeyaan walaba wadan oo jaar baan nahay hadaan wax iska tabanayno iyo wax kasta waa inaan miiska ku dhameysano waa inaan insha Allah taala u sheegno waxaan ka doonayno runtii hadaan dareenkii ama raayigayga aan waxa weeyaan cabiro soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yimaado waxa weeyaan Hargeysa caasimadda Soomaaliland runtii waxay tahay waa soo dhaweyn dadkan kala roobay shacabkan ummadan la soo dhaweynaa runtii waxaan u arkaa waa arrin wanaagsan
waxaan leeyahay muuse biixota uu ka baraysiiyey go'aankiisii fiicnaa uu galay inuu madaxweynaha Soomaaliya ku soo dhaweeyo Soomaaliland ummadda shacabka Soomaaliland aad bay ugu hambalyeynaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim arinta farmaajo hadii aan ka hadlo kullay farmaajo waxa weeyaan madaxweyne waxa qaran weeyaan Soomaaliland hadii uu farmaajo imaadana waxana ma soo kordhin karo waxana taqa kuwa beerin karo laakiin waa laba waxa weeyaan wadan oo saaxiibo weeyaan barakaatu dhamaan horta shacabweynaha gobolka Awdal waan salaaminaa horta maanta su'aashu waxa weeyaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu waa madaxweyne qaran oo madaxweyne Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawo wadankaagi dalkaagi Cabdi Cabdillaahi telefishinka Horyaal magaalada Boorama